مدحيه كالهبر وقامي ديرانو وجدي هدف له دتكي سانا وهيليو هبسا من آياته هبسا من آياته مدحيه كالهبر وقامي ديرانو وجدي هدف له دتكي سانا وهيليو هبسا من آياته هبسا من آياته مدحيه كالهبر وقامي ديرانو وجدي هدف له دتكي سانا وهيليو هبسا من آياته هبسا من آياته مدحيه كالهبر وقامي ديرانو وجدي هدف له دتكي سانا وهيليو هبسا من آياته هبسا من آياته iyadoo ay maanta si rasmi ah ugu eegtay waqtiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland u haysteen diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland inay ku soo gabagabowdo ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeya aqoon-yahan siyaasi Cismaan Maxamed Badmaax oo casar liiqi uu socdaal ugu kurgalayo sida ay bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa isku diiwaangelinayaan uu ku tagay degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Axmed Lagaxa waxaana uu gudoomiye Cismaan Maxamed Badmaax uu socdaalkiisa ku horeeyay dugsiga Maxamuud Axmed Cali ee ka tirsan degmada Maxamuud Haybe waxaana uu martii goobkaasi uu soo gaaray oo kulan isxog wareysi ah uu qaatay shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee ku howlana diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana iga warbixiyeen habka iyo hanaanka ay shaqada u wadaan waxaana uu gudoomiye Badmaax uu shaqaalaha komishanka ku dhiiriyay inay shaqada saacadahaasi ka haray ay halkaasi sii xoojiyaan isla markaasina ay dhamaystiraan shacabka safka ugu jira sida isku diiwaangelin lahaayeen intaasi kadibna waxa warbaahinta halkaasi kula hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeya aqoon-yahan siyaasi Cismaan Maxamed Badmaax iyo qaar ka mid ah waxgaradkii ku sugnaa goobtaasi Maxamuud Axmed Cali ee degmada Maxamuud Haybe halka waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka mideeya oo halkan xafadda noogu yimi diiwaangelintan ka socota Maxamuud Haybe halkan noogu yimi Maxamuud Axmed Cali noogu soo booqday baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa gudoomiye soo dhawow adiga waftigaada wadaba soo dhawaada waa xafadda ku dhalateen waa tiinii dadkiinii baa jooga gudoomiye ku soo dhawaada mar labaad gudoomiyaha ururka mideeye bulshadiinnan xaafadan imaka diiwaangelinta joogay Maxamuud Haybe salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagu urur siyaasadeedka dadka iyo dadkaba hananaya ilaahay inuu noo keenaa baan ku ducaynaynaa magacaad qaadateen in ilaahay inoogu dhabeeyaa baan ku ducaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay noo kaa keeno cadaalad ogow cadaalad iyo soomaalinimo ogow dardaaran intaasaan idinka dhigayaa annaga xusbiyadu ma kala xigaan annaga xusbiyadu shacabkii baa nama kala xigaan nin waliba wuxuu nagashadana uu naga helaya haddii alla idmo bismillaahi raxmaani raxiim urur siyaasadeedka mideeye oo noogu yimi xaafadda Quraacdheer ayaanu soo dhaweynaynaa Cismaan Badmaax ururka gudoomiyaha Badmaax waa ka soo dhawow insha Allah mideeye kii dadka mideeyaha noqdo waxaan nasiib u yeeshay maanta oo ay tahay gabagabadii diiwaangelinta inaanimi xaafadda Maxamuud Haybe Maxamuud Axmed Cali mar labaad xaafaddan Maxamuud Haybe waa gundhigii magaalada Hargeysa ilbaxnimadeedii waa jamaaca weyn waxa weeye waa halkii dadka iyo Quraacdheer waa halkii dadka iyo Guryasamo waa halkii dadka isku haysay waa halkay Hargeysa ka soo unkantay ninka tartamaya ee guul doonaya tartan iyo doorashaba waa halka guusha keenaysa markuu isku sidko ee uu mideeyo ilaahay waxaan ka baryayaa sida qalbiga furan
ee ehelnimada ah ee karaamada leh ee sharafta leh ee odayaashii ay halkaa ka sheegeen anigu in layga xigo uma haysto deegaankan ka mid baan ahay maantana farxad gaaray ii tahay inaan gabagabadii diiwaangelinta aan ka soo qayb galo ilaahay idankiina waxaan ka baryayaa in qarankeenu uu noqdo qaran isku duuban midooba quluub midaysan qaran midaysan aad baa u mahadsantihiin dhinaca kale waxaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye uu socdaal ee ugu kuurgalaya habsami socodka diiwaangelinta codbixiyaasha oo caawa ku eegay uu ku tegey degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Siinaye waxaana markii uu gudoomiye Badmaax soo gaaray xaafaddaasi Siinaye mid ka mid ah goobaha diiwaangelinta codbixiyaasha ay ka socotay halkaasi ku qaabilay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafaddaasi waxaana uu gudoomiyuhu isxog waraysi uu la qaatay shaqaalaha diiwaangelinta codbixiyaasha ee goobtaasi ku sugnaa intaasi kadibna waxaa halkaasi warbaahinta kala hadlay qaar ka mid ah caaqiladii iyo haweenkii madashaasi ku soo dhaweeyey gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye waxaana yidhaahdeen bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa caaqil maxamed xaashi axmed goobtan aanu joognaana waxa weeyaan degmada Axmed Dhagax gaar ahaan goobta rugta saldhigga rugta Siinay goobtaasna aanu joogaan ku qornay waxaana soo booqday gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye Mr. Cismaan Badmaax aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo ururkiisa iyo cid kasta oo tabantaabinaysa goob cid kasta oo tabantaabinaysa isdiiwaangelinta oo ka shaqaynaysa oo dadka gubaabinaysa waa aragtaan saacaddu imika waxa weeyaan 6:05 kuyuuga istaba haystana waa aragtaan dadku halku taagan yahay halka guduuna uu buuxa sidaa awgeed waxaanu codsan lahayn oo komishinka iyo cid kasta oo qusaysaba ka codsanayna in dadka muddada loo kordhiyo dadka sidaa u tuban xuquuq ay leeyihiin inay lunto maaha waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa in loo kordhiyo dadka muddada ururkana soo booqdayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ee mideeye Mr. Cismaan Badmaax waa ku soo dhawaynaynaa halkan waxaa nagu soo booqday ururka mideeye Cismaan Badmaax degmada Axmed Dhagax haddii laha idhaahdo aad iyo aad baan u hambalyeynanaa iyagana u salaamaynaa amba xaafadda Siinay haddii laha idhaahdo waa kaleenu codsanaynaa komishinka iyo ciddii ay qusayso haddii laha idhaahdo kaadh qaadashadani in muddada dadka loo kordhiyo oo 25 maalmood amba 20 maalmood oo haddii laha idhaahdo dadku uu ku haqabeelo inna loogu kordhiyo sidaana komishinkaanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay urur siyaasadeedkana soo booqdayna allayaa baarig sidaasaa loo baahan inaad dadkiinna u abaabushaan inaad dadkiinna u dhex taagnaataan inaad dadkiinna wuxuu xaqu leeyey waxa weeye intaanay gaadhin codbixinta inaad waxa weeye ku abaabushaan aad iyo aadna waanu idiin hambalyaynaynaa allayaa baarig ururkana waa salaamaynaa halkan waxaa nagu soo booqday gudoomiyaha xusbiga mideeye Cismaan Badmaax ayaa nagu soo booqday uu mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay inay dadkooda saa u dhex maraan ay goobahooda saa wada dhex maraan magaalada saa u dhex maraan qurux badan waxaanu ka codsanaynaa komishinka iyo gudoomiyayaasha musharaxiintaaba inay noo ashkatoodaan oo komishinka noogu tagaan oo dadku waa kuwa halkaa wada taagan dadkii way wada saasay ugu badan yihiin wiimanku baabay ummadda furta soo goostay wada yimaadeen marka in dhowr cisho naloo kordhiyo oo goobaha naloogu kordhiyo ayaanu doonaynaa ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye aqoon-yahan siyaasi Cismaan Maxamed Badmaax waxaana u mahad celiyey bulshadani halkaasi ku soo dhaweysay xaafadda Siinay ee Axmed Dhagax waxaanu soo booqnay kormeer iyadoo wakhtigii diiwaangelintu gabagaba tahay laakiinse ay ka maarmi weyday inaannu soo booqanno xaafadda Axmed Dhagax xaafaddii Siinay oo xaafaddana xaafad taariikh fac weyn oo ku suntan degaan taariikh dheer leh oo hadday tahay halgankii iyo hadday tahay istiqraarkii Somalilandba intaba ku suntan waxaanu la kulanay madax dhaqameedyadoodii xubnihii garabka haweenka dad aad iyo aad u qiimeeyey in ay isdiiwaangeliyaan rabitaankoodii muujiyey inay kaadhka qaataan wakhtigaa hadda la eedaamay salaaddii maqrib waa aragtaan
ilaa iyo dadkii siday tuban yihiin tabashooyin iyo cabashooyin bay muujiyeen waxaanu sheegnay in wakhti muddadii ay muddeeyeen guddiga doorashooyinku laakiinse ay ka ballan qaadeen in ay ku talagalkoodu ay wadi doonaan mustaqbalka dhow inay socon doonto diiwaangelintu ilaahayna waxaannu ka baryaynaa in ay caawa si wanaagsan ku soo dhammaato dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee joogay iyo intaba waxaannu u sheegnay dadka badan ee halkaa maanta jooga ee qaadanaya kaadhadhkoodii in ay dhammaystiraan ilaa uu qofka ugu dambeeya uu qaadanayo caawa intaana waannu ka codsannay waanay ka ballan qaadeen waxaan rajaynayaa in ay guul iyo gobonnimo ku soo dhammaanayso halgan iyo hayaan dheer baa la soo galay waxaan halkan uga mahadnaqayaa iyagana guddida doorashooyinka ee iyagoo isxilqaamay ee muddadii ay hawshani socotay si wacan oo hufan oo ma garanaysaa dhammaystiran ay u howlgaleen inta ka hadhayna inay dadka wixii cabashaa iyo tabashaana ay arrinkaa xal ka doonaan ayaannu ka rajaynaynaa